madaxweynaha dowladda Puntland mudane Sii Cabdilaahi Dine oo waliyo gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada dowladda Puntland mudane Maxamed Baari iyo mas'uuliyiin kale ayaa maanta ka qayb galay munaasabad ballaaran oo xariga looga jiray dhismaha cusub ee jaamacadda City Code ee magaalada Boosaaso. madaxweynaha ayaa kormeeray qaybaha kala duwan ee ka kooban tahay dhismaha xarunta cusub ee jaamacadda City Code isagoona sheegay in jaamacadda City Code ay kaalin weyn ka geysan doonto horumarka dhanka waxbarashada sare ee guud ahaan dalka. sidoo kale madaxweyne Dine waxa uu bogaadiyay maamulka jaamacadda oo dadaal badan geliyay sidii dhismaha loo hirgelin lahaa isagoona xusay in wax lagu farxo ay tahay in maalinta ka dambaysa horumar badan laga gaarayo dhanka waxbarashada dalka. gudoomiyaha jaamacadda City Code Engineer Cabdixakiin Xuseen oo goreyntii munaasabadda ka hadlay ayaa tilmaamay in jaamacadda City Code ay dabooli doonto baahiyaha dhanka tacliinta sare ee ka jira deegaanada Puntland iyo guud ahaan dalka oo dhan. intaas kadib madaxweyne jaamacaddan waxaa ka baxay dad gaaraya 2500 waxaa hadda dhigta arday gaaraysa 850 waxay scholarship siisaa dadka danyarta ah oo aan awoodin oo almost sanad kasta 200 arday ku dhow oo scholarship baa la bixiyaa oo free isugu jira iyo half isugu jira waxyaalaha marka saaciday oo halka gaarsiiyay ka mid tahay intaas kadib madaxweyne waxaan rabaa inaan kula wadaago in jaamacaddu haddana markii hore laba kuliyood ay ahayd higsigeeduna ahaa IT-ga iyo caafimaadka oo markaa daraasad la sameeyay lagu ogaaday inay yihiin baahiyaha shaqada ugu badan ee ka jira Puntland saasaa keentay marka in kuliyadaha xoog la saaro sanadatan waxa xoog la saaraya jaamacadda higsigeeda ka mid ah wax soo saarka dalka oo ugu horeeyaan qaybta xoolaha qaybta beeraha qaybta kalluumaysiga waxaan rajaynayaa horumarkii aan ka gaarnay qaybta caafimaadka iyo qaybta IT-ga in ayadana ka gaari doono insha Allah hadii la yiraahdo. madaxweynaha Puntland mudane Sii Cabdilaahi Dine oo xariga ka jira dhismaha cusub ee yeelan doonto jaamacadda City Code ayaa xusay in jaamacadda City Code ay door weyn ka qaadan doonto sare u qaadida tacliinta sare ee dalka. waxaan ku faraxsanahay muddada ay jirtay ardada ay soo saartay iyo heerka ay gaartay waxaan u rajaynayaa Ilaahay idankiis guul intaan ka badan tacliintu waa asaaska nolosha bini'aadamka ama horumarka bini'aadamku baahi badan buu qabaa laakiin baahida tacliinta uu qabo waa midda sababta inay dadka nolol wanaagsan ku noolaadaan waxaan si gaar ugu faraxsanahay inay jaamacaddan ahmiyadda saarayso culumta sayniska oo muhiim u ah horumarka bulshadeena rabto inay gaarto insha Allah waxaan rajaynayaa jaamacaddan oo hadda ay ka muuqato kobac ballaaran hadalkiisa halka urur jaamacadaha Puntland ay leeyihiin suuragal ma aha inay jaamacadaha qaybtood ka mid noqon taasna waxaan rajaynaynaa inay hirgasho meesha ay doorteen iyo xaafadda ay ku taalana baahi weyn ay jaamacadaha u qabeen waxaan rajaynayaa inay magaalada tan hadda waa qayb koraysa oo kobcaysa waxaan rajaynayaa inay jaamacaddan marka dambe aan soo booqanno iyadoo oo dhismayaal waaweyn ardadoo badan qalabka wax lagu barto aad u kobcay iyo dhalinyarada oo runtii fursad fiican u hesha in ay aqoontooda kordhiyaan inaan la kulmi doono. jaamacadda City Code oo la aasaasay sanadkii 2016 ayaa muddadii jirtay waxay soo saartay jiilal kala duwan oo ka baxay kuliyadaha ay jaamacaddu bixiso iyadoona jaamacaddu ay ka mid tahay jaamacadaha ugu horeeya ee bixiya aqoonta qaybaheeda kala duwan. Salmaan Ogorka Sal Cable TV magaalada Boosaaso.